socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu ambabaxay dalka Uganda ayaa ujeedadiisu tahay sidii dawladaha ay ka mid tahay Uganda ee ciidamadu ka joogan Soomaaliya ay door muuqda ugu yeelan lahaayeen howlgallada ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee ka dhanka ah al-shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka General Cabdiweli Jaamac Xuseen Goran oo garoonka diyaaradaha ku sugootiyay madaxweynaha ayaa shir jiraayid uu isla garoonka ku qabtay waxa uu si kooban u sharaxay safarka madaxweynaha uu sheegay inuu muhiim u yahay xoojinta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab. waxaan ku sii sagootiyay oo halkaan muxuu ahaa ugu yimid inaan sagootiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo uu ambabaxaya muxuu ahaa dalalka aan saaxiibka nahay oo iyagu mar walba muxuu ahaa u taagan inay ummadda Soomaaliyeed gacan ka siiyaan dhibaatooyinka amniga xaqiisa ay ka siiyaan iyo humanitarianka ama xagga maartay bini'aadanimada ka siiya ayuu u tagayaa wuxuuna kala hadlayaa oo uu rabaa inuu ku baraarujiyo inay laban muxuu ahaa gacantii ayna siin jireen bacdama aan ku jirno hadda xaalad adag oo maxay ahayto cadow aan naxariis lahayn oo ummadda Soomaaliyeed aan kala soocaynin in muxuu ahaa ay gumaad ku hayaan oo ogtihiin hadda markii u dambeysay ilaa 300 oo qof inay dhinteen ka badan ay muxuu ahaa dhaawaceen hantina burburiyeen marka cadowgaasi wax weeye cadow caalami weeye sidaas daraadeed in adduunka lagu baraarujiyo oo inta ay og yihiin maahna intaana waan ognahay oo ka warqabno ilaa anaga dhulka joognee uu muxuu ahaa madaxweynaha iyo waftigiisu ay kala hadlaan halkaasna waxaan rajaynayaa inay dawladaha uu u tagayaa iyo caalamkuba inay ku baraarugaan arrinta message-ka uu wada madaxweynuhu inay tahay mid dhab ah oo aan maanta la dhayalsan karin ina taas inuu guul kala imaanaya ayaan rajaynayaa annagu haddaan xoog dalka Soomaaliyeed nahay ama qaybaha amniga oo dhan ama boliis ahaado ama nabadgelyada ha ahaato ama cid kale ha ahaatee waxaan diyaar la nahay oo insha Allah aan safka hore ka gali doonaa sidii arrimahaas looga badbaadin lahaa shacabka oo shacabku ay nabadgelyo ugu seexan lahaayeen oo ay hantidooda iyo sharafkoodu uu muxuu ahaa ay nabad ugu mar lahaayeen dhulkooda. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor safarkiisa maanta ee dalka Uganda waxa uu horay ula hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee loo diyaariyay dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee 14 bishan gumaaday shacab aan waxba galabsan. Ali Baasha Cabdullaahi Cabdi warbaahinta qaranka Villa Soomaaliya.